السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميل والبو دنيدا aad ka joogtaan saakay waxaan gurigeeda dhabta ah geynay walaasheen hibo oo kamid ah dadka reer Muqdisho kuwa isticmaala aalada YouTube-ka ahina gabar runtii firfircoon إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. إله سبحانه وتعالى وحا قبريا هبو إنه إلهي يبدكن إنه إلهي جناد كورابيو قبري واسعيو انت إيه كتقتي لو يدعنون إلهي كريمة في عن يسمر قير قوى أوصيو إن ما أنت وحي أدي قرقي دي الساحة أهان قف قصتو إسلامنا ودمنا يا ما مهلا وضع الصعداء والوك الله ريا ما هن إن إلهي قفكيني جيردي أنا ما كل مية أيضا إلهي وحا قبرينا إن إلهي قبري واسعيو دمي هذا ودافو قبر وحي هاد يوتيوبرada oo fiican oo akhlaaq leh oo dadka aan u dhimin adduunkeeda iska dhaqanayso laakiin qof walba fiican hadii qof waaray ma jiro haduu qof waaray ummadda nabi maxamed baa joogi lahaa adduunkan inaan lagu waaray inuu yahay maalmo tirsan bay taas ku cadeynaysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa qof kasto islaam oo dhintay inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo ayadana waxaan leenahay ilaahay dambi dhaaf ha uga dhigo qabriga ha u waasiciyo kitaabkeedana aan gacanta midigta ilaahay ka siiyo intaas ka badan ma heli kari fiidiyoga waxa idin tusaa oo wiilashii ka soo duubay dugaal media ee soo duubeen oo tacsideeda insha Allah qof kasto islaamana waxa ku waajibto inuu soo duceeyo walaasheen oo dhaha ilaahay u naxariisto ma meel loo wada socdo loo kala horeeyo maanta noqotay ilaahay anagana maalinteena gadaasheedna ma fidneeyo inta ka dhimatay iyo inta la dhalatayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo oo ugu horeeyo ninkeeda caruurteedana kuwa soo barbaaro oo kora Allah ka dhigo hooyadood magaceeda kor ka dhigo insha Allah idinkan waxa idin leeyahay soo duceeyo qof kasto islaam meel u wada socdo loo wada dhimanayo waay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميل والبو دنيدا aad ka joogtaan saakay waxaan gurigeeda dhabta ah geynay walaasheen hibo oo kamid ah dadka reer Muqdisho kuwa isticmaala aalada YouTube-ka ahina gabar runtii firfircoon dhan walbana ka fiicneed Allah u naxariistaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun meeshaan waa meel kulligeen dhamaanteen la wada socdo waay qof walba nolol dhami geeri wada dhamina hibo ilaaha u naxariisto waxa kaliya ay hadda inooga baahan tahay waxa waay inaan u duceeyno hibo waa iska xanuunsaneed labada bilo ugu dambeysay sad YouTube-keeda kaga arki kartaan maantan anagoo dhan hibo waa soo duugnay ilaaha u naxariisto hadalka kuma badnaan doono waxa kale oo nala joogo hibo seegeeda xasan oo runtii xaajidiisa maanta guriga dhabta xageeyay adduunyadana qof walba uu tagaa hadii qof adduunyada uu joogi lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam joogi lahaa ha ogaado qof walba maalin inuu dhimanayo ha ogaado qof walba oo adduunkan nolol arko inuu geeri dhaminayo jamuuniya ku soo dhaweynaa jamuun soo dhaw aad u maasantay daax marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto walaasheena hibo oo kamid ahayd dhalinyarada ama gabdhaha YouTube-leyda ah bilay ugu dambeeyna aad u xanuunsanayd marka hore waxaan leenahay qof walba wax ku tabanayay ama ay hore isaga qalad iyo gaf jiray inuu iska cafiyo una duceeyo insha Allah inuu u fududeeyo su'aalaha waxaan leeyahay familka oo hadda nala jooga saygeeda xasan ilaa samir iimaan ka siiyo kulli adaa la joogay oo kabarhay dhibka iyo dhibaatadii martay waxaan rabnaa in dadka la socday ama eeda daneen jiray inay u soo duceeyaan geera xanuun badan ee saakay waxaan joognaa qabuura iskool booliisiya meesha lagu aasay waxaan rajaynaynaa insha Allah qof walba wax ka tabanaya maalin una isgaareen inuu afin doono si degdeg oo ahaa si kaliya u dhacday geerida kulley inteeni badan waa ka soo gaarnay dadka qaar wadooyin ku xirmay qaarna insha Allah way tacsiyeen doonaan dad badan ka soo gaaray familkeeda qaraabadeeda ehladeeda anagana waxaan leenahay insha Allah jannatu firdaws Allah ka baraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun كل نفس ذائقة الموت نفل ويدمنيسا جيريدا إذا جاء أجلها لا يستقدرون ساعة ولا يستخدمون runtii waa geeri aad iyo aad u naxdin badan xaqiiqatan hibo waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo hamile isla markaana kamid ahayd dhalinyarada maaweelisa baraha bulshada qayb kamid ah waxaan leenahay samri iimaan Allah ka siiyo ehelkii qaraawadii familkii ka geeriyootay
runtii ani Ismaaciil ahaanna waxaan ahay Hibo qofka ugu horeeyay ama dadka ugu horeeyay social media isla soo bilaabeen xilligii ay ku soo biireysay aad baan ugu naxay runtii Ilaahay u naxariisto sidoo walaalkay Jamuni sheegana qof waliba oo runtii bar bulsho hadii lagu jiro hal isqabanaa qofba wax qalad baa ka dhacaya qof waliba oo Hibo ama ay ku gaftay ama ku gafay waxaan alla ka baryaynaa inuu iska cafiyo ayaduna maanta waa taa naga hooseysa oo gurigeedii rasmiga ah iyo hoytay dhamaantiina waxaan idin leenahay haloo soo duceeyo sidoo kale waxaan kaga tacsiinayaa walaalkay Xasan oo ah sayga walaashay Hibo Ilaahay asna samir iimaan Allah ka siiyo runtii xilligan oo kale markii la joogo waxa way qof oo inta badan aad waqti wada qaadateen aad wada nooleedeen hadii ay dunida ka tagto xanuunka iyo murugada la dareemayo qof waliba uu ogyahay marka dhamaanteen waxaan leenahay walaasheen iska cafino dhamaan youtuberada meel kasta oo dunida ay ka joogaana waxaan ka codsanayaa inay u soo duceeyaan walaasheen Ilaahay samir iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxaan leeyahay inta ku xiran youtuberada waxa geeriyootay walaashiina Hibo oo ahayd gabar youtuberad ah oo aad ugu jeclayd in youtube-ka ay ka gaarto hami weyn waxay ka mid ahayd magaceed gabadha magaceeda raal noqdo maanta aadan u qiiroonaya Hibo waxay ahayd gabar oo youtube-keena ka mid ah waxayna ahayd gabdhaha youtube-keena kor u soo qaaday oo waqtiga badan ku bixiyay waxaan leeyahay Ilaaha u naxariisto sabir iimaan Allah ka wada siiyo qoyskay ka wada baxday iyo seegeeda Xasan waxaan rabaa marka dadka wax u qabo in eegana ay iska cafiyaan waxa waay inta youtube lagu jiro dagaal badan ay imaanayo waa la isqabanaa waxyaalaha micnana la isku qabanaa waxay ka mid ahayd Hibo gabar anagana la shaqeynaysay waa jirtay mar ay dhacday gaf oo isdagaalnay laakiin saas ay tahay waa ka heshiinay marka ugu dambeysay ani iyada si gaar ah u heshiinay marka waxa leeyahay walaasheeda Ilaaha u naxariisto qabrigeeda Ilaaha u waasiciyo kitaabkeeda midig Allah ka siiyo marta la jecel yahay Ilaaha ka dhigo waxa waay adduunkan waa laga tagaa wax laga qabanayo malahan qofkii isqa qaada iyo qofkii meel dheer isgeeyo qabrigaan oo gala dhulkaan oo gala marka waxa leeyahay meel walba aad joogtiin walaashiina soo duceeya inuu Ilaahay u naxariisto oo Ilaahay ka dhiga martida la jecel yahay Ilaahayna u fududeeyo su'aasheeda waayahay waxaan soo dhaweynaynaa Xasan Hibo gurigeeda waa geena Ilaaha u naxariisto bal Xasan كلمة أقدر سنة ملهن الحمد لله إلى ونحرست ولا شيء. u duceeno Hibo qof walba oo aad iska tabanayeen ha cafiyo qof walba oo deen ku leh ama Hibo deen ku leh waxa diyaar lanahay in aan bixino Xasan oo seegeeda ah Allah u naxariisto seegeeda diyaar la ah inuu bixiyo annagana waa garab taaganahay Hibo Ilaaha u naxariisto marti la jecel yahay Allah ka dhigo dhamaanteenana Ilaahay gadaasheedna ma fidnay halis cafiyo adduunyada waa laga tagaa qofkii maanta nool biri ma noolo qofkii maanta nool biri ma noolo qofkii walaalka ah handoo xumaanka marka kaliya maanta waxay nooga baahan tahay duco aan u duceeyno Ilaahay inuu naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh